بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع النور وإذن بلا بدونة بوغيني لباد سلسلة New Concept English ومجلس لدهدو Practice and Progress oo Practice and Progresski waa tahay marka buuggan sidee number 2 ama buugga labaad Practice and Progressku wuxuu wax badan ka sheegayaa oo xoog saaraya grammarka from basic to intermediate level, laga bilaabo baseka ilaa intermediate levelka ama heer dugsi dhexe oo kale ayuu ka fargareynayaa. waxa uu ka sheekeynayaa masalan macnaha tenseska oo dhamaantood macnaha waxa tense Ingiriisku leeyahay waxoogaa uu tafaasiil ka bixinayo. waxa uu sheegayaa oo kale sentenceska ama noocyada weeraha ee kala duwan ayuu xusayaa. waxa kale oo xusayaa macnaha passive voice-ka iyo direct speech-ka iyo indirect speech, waa active voice iyo passive voice, iyo direct and indirect speech oo ah markaa grammarka qaybo kamida. waxa kale oo ina baraya masalan special difficulties wax la yiraahdo weeriyada inagu cusub ee buugga inoogu imanaya kamida oo isna tusaalayaal uu ka bixinayo. waxa iyadana jirta oo uu xoog saaraya wuxuu isagoo ka kooban 4 unit oo midkiiba uu yahay 24 cashar, sidaana uu ku noqday 96 cashar. 4 unit mid kasta wax uu focus gareynaya ama uu diiradda saaraya, mid kasto kamidi waxbuu diiradda saaraya. waa yahay cadeen cutubka koowaad soo qaadano waxa uu saaraya diiradda simple sentences waxa loo yaqaano ama weeraha fudud ama jumla mufiida waxa loo yaqaano ayuu xoog saaraya. okay, iyo simple verbska iyo verbka macnaha primary-ga ayuu xoog saaraya. unitka labaad waxa uu xoog saaraya compound sentenceska ama laba sentence oo simple oo la isugu xidhay coordinating conjunction, xiriiryaha coordinatingka. unitka saddexaad waxa uu xoog saaraya isna complex sentenceska, jumladaha kakan ama fara badan oo ay isku xidhayaan iyagana subordinate conjunctions ama subordinating conjunctions, xiriiryaasha subordinate-ka ah. macnaha jumlad subordinate oo ku tiirsanaa ayaa wuxuu ku xidhayaa jumladda main clause-ka ah. okay, unitka afraad waxa uu xoog saaraya macnaha oo kale wuxuu aad xoog u saaraya isla unitkii saddexaad macnaha sentenceska aynu ku soo dhiganay ama complex sentenceski. way hadii inta grammarkii masalan kan idhaahno waxyaabaha uu diiradda saaraya buuggani waxa iyaduna jirta sida loo qoro brisayga, macnaha sida sheeko dhan oo macnaha 2 page loo soo gaabiyo intaas soo eray looga dhigo ama container ama 6 eray macnaheedu oo dhamina ku dhan yahay oo la yiraahdo brisay macnaheedu waxa weeyaan summing up, inaad soo koobto what have been said, wixii la yiri oo dhan oo aad ku soo koobto erayo kooban adigoon macnaheedu iyo wixii meesha ay xambaarsanayd waxba ka tageyn. brisayga iyo masalan oo kale vocabulary-ga iyo points-ka, macnaha sida points inta sheekadii lagala soo dhaxbaxo noqdadaha muhiimka ah dabeedna looga sameeyo brisayga. marka intaynaan unitiska u gelin waxaan jeclaan lahaa dhammaan buugga waxa ku qoran ilaa ma iyo xaashida koowaad aynu macnaha dhammaan duubno si aynu uga caawino dadka baranaya inay fahmaan waxa meesha ku qoran. marka halka ay ku qoran tahay baynu ka bilaabaynaa haddii la yiraahdo to the teacher. waa inta aynaan u gelin unitka koowaad iyo cashar koowaad aynaan u gelin. marka to the teacher waxa weyn macallinkii bay ku socotaa, waa sheekadii macallinka loo soo dhigay ama yacni tilmaamihii macallinka ku socday ee buugga ugu targalay macallinku siduu wax u maamulayo ama buugga ula macaamilayo. language learning waa barashada luqadda at the pre-intermediate level, marka laga hadlayo levelka ama darajada ama classeska ka hooseeya ama ka horeeya intermediate-ka. classeska ka horeeya intermediate-ka ee beginnerkana dhaafay.
marka waxaan ka bilaabanaa general principles waa qawaaniin guud general principles ama mabaadi'da guud ama qawaaniin caam ah wuxuu traditional methods macna dariiqooyinkii dhaqamiga ahaa of learning ee aad ku baranaysay a foreign language luqada yani ajnabiya die hard macna aad bay meesha uga baxday oo way socotay die hard macna meesha way ka baxday as long ago very hore as 1921 oo 1921 Dr. Harold Palmer nin oran jiray Ingiriisa oo grammarianka macna dadka grammarka ku takhasusay ahaa ayaa point out wuxuu farta ku fiiqay the important difference farqiga muhiimka ee bidunu dhaxeeya understanding fahanka laga qaadanayo how a language works sida luqadda u shaqeyso and learning iyo barashada la baranayo how to use it sida loo isticmaalayo since that time laga soo bilaabo waaga a great many effective techniques farsamooyin badan ama taqniyaad fara badan oo wax ku ool ah oo effective oo saameyn yeeshay have been developed ayaa u tadawuray to enable inay awood u siiyaan students ardayda to learn a foreign language inay luqadda bartaan in the light of the intensive modern research in the light of iyadoo laga duulayo ama bidow inagoo ka duulana iftiinka uu bixinayo of intensive modern research cilmi baarista iyo baxsiga casriga ah ee macnaha aadka u ballaaran ee kasaafada leh ee la bilaabay intensive waa maksuuf ama kasaafo leh wuxuu yidhi in the light of inagoo ka duulayna of intensive modern researchka aadka u badan ee casriga ah no one ma jiro qof would seriously question macnaha isu weydiin kara si baan isu weydiin kara the basic principles mabaadi'da guud that have evolved ee kasoo hana qaaday ama kasoo tadawurtay since Palmer's day ilaa xilligii ninka Palmer oran jiray uu noolaa doo inkastoo there ay jiraan considerable disagreement khilaaf fara badan oo aad u weyn aboodo ku saabsan how these principles sida mabaadi'daas ama qawaaniintaasi can best be implemented sida ugu fiican loo dhammaystiro ama loo fulin karo implemented waa la fulin karo carry out oo kale ka dhigan tahay despite kasakow the great progress tadawurka weyn ee that has been made la sameeyey teachers macallimiinta in many parts of the world qaybo badan oo adduunka ka midi will cling to waxay ku dhegan yihiin oo ay sidaas u haystaan dacalka old fashioned methods duruqii gaboobay and to some extent ilaa xaddin ma ama ilaa xad and to some extent ilaa xadna perpetuate waxay dedejiyaan oo kale the systems hababka by which they themselves iyaga laftoodu leenta ay ku barteen a foreign language luqadda ajnabiga idmay waxaa laga yaabaa therefore sidaa la ajligeed not be out of place inaanay meesha ka bixin to restate inaynu dib u xusno some basic principles mabaadi'da guud ee asaasiga ah and to discuss iyo inaynu ka hadalno briefly si kooban how they can best be put into effect sida saameyn loogu yeeli karo how sida they can best be ay sida ugu fiican u noqon karaan put into effect inay saameyn ku yeeshaan in the classroom fasalka learning haddaba barashada la baranayo language luqad is not maaha a matter arrin maaha of acquiring aad ku hananayso ama ku gaarsanayso ama ku qabsanayso ama ku helayso a set xubin of rules qawaaniina and building up oo aad ku dhisayso a large vocabulary erayo badan oo lagu gaarsado luqadda barashadeedu sidaa maaha macnaha completely it is absolutely different gebi ahaan way ka duwan tahay macnaha inaad erayo badan u gaarsato oo taa intaasoo erey baan aqaanaa but I can't use laakiin ma isticmaali karo what does it matter maxay kugu taalla marka haddaan isticmaali karayn 100,000 oo ereyna aad taqaano okay waayahay wuxuu the teacher's efforts dadaalka macallinku should not be directed waa inaan lagu hagin ama aan lagu jahayn ad informing inuu ku warbixiyo his students ardayda uga warbixiyo about the language luqadda but laakiin waxaa looga jeedaa ad enabling them inaad awood u siiso to use it inay vocabulary-ga isticmaalaan students mastery qalinjabinta ardayga uu ka qalinjabinayo ama barashada uu baranayo mastery waxa weeyaan wixii inaad master ku noqoto heer sare ku noqoto students mastery macnaha barashada ardayga uu baranayo of a language luqaddu is ultimately kama dameysta measured waxaa lagu cabiraa
by how well he can use it qofkaasi sida ugu fiican uu u isticmaali karo not by yani ma lagu cabiri maayo how much he knows about it inta uu ka yaqaano in this respect markaynu jaanibkan iska taagno ama dhinacan ka eegno learning language luqadda barashadeedu has much in common waxay wax badan wadaagaan with learning sida loo baranayo a musical instrument aalad music oo lagu barayo oo kale the drills macnaha laylisyada and exercises iyo tamriinaadka ama laylisyada ee student ardaygu does uu sameeyaa have one end in sight dhinac bay macnaha aragti ahaan ka leeyihin have one end waxay leeyihin dacal qura inside dhinaca aragtida dhinacaas waa maxay to enable him ardayga inaad awood u siiso to become inuu noqdo a skilled performer macnaha gute ama sameeye xirfad leh a student ardayga who has learned bartay a lot of grammar naxwo fara badan but who cannot use an isticmaali karin language luqadu is in the position wuxuu ku jira maqaamka ama heerka ama maxalka ama meesha ayuu taagan yahay of a pianist nin pianada tuma ama aalada musica tuma who has learned oo bartay a lot about in badan oo ku saabsan harmony wax isku mid ah a lot about wax badan oo ku saabsan harmony macnaha waxyaabo badan oo isku mid ah harmony waa agreement oo kale wax isku wada mid ah but cannot play the piano laakiin aan pianada garaaci karin okay the student's command qaabka ardayga of a language luqadu will therefore be judged waxa lagu xukumayaa not by how much he knows maaha inta ugu badan uu yaqaano but how well he can perform laakiin waa siduu uga gudan karo ama uga samayn karo arin in public place meel public oo kale in order to become hadba si aad u noqoto a skilled performer gute ama sameeye xirfad leh the student ardaygu must become waa inuu noqdaa proficient mid hanaqaadka proficient oo isku filan at using inuu isticmaalo the unities xubnaha of a language luqada and the unit of a language is not unitka aynu ka hadlayna luqaduna maaha as was one is commonly supposed sidii beriyaha qaarkood la qabi jiray the word ereyga but laakiin the sentence waa jumlada haddaad 100 erey taqaano oo aanad isticmaali karin one word ama sentence kula samayn karin it doesn't matter macna kuma samaynayso okay learning words macna ereyada barashadoodu irrespective aan xiriirka la lahayn of their function macna shaqada ay qabanayaan can be waxay noqon kartaa a waste of time waqti lumis for not all words are equal for maxaa yeelay not all words ereyadoo dhan maaha qaar are equal isku mid ah we must draw waa inuu saarnaa a distinction macnaha caddayn ama farqiyaad caddaana oo bidin u dhexeeya structural words ereyada qaab dhismeedka ah and lexical items iyo waxyaabaha luqad ahaan asalka u ah ama yani literally ama lexical items ashyaada ama ereyada luqawiga lexical waa luqawiga ah structuralna waa qaab dhismeedka words like I مثلا ereyada I iyo you iyo he etc iyo wixii lamidi are structural waa kuwii wax lagu dhisayay okay their use isticmaalkoodu can be closely defined zero isku dhow baa loo qeexi karaa they are part of a grammatical system oo nooc ka mida ama qayb ka mida qaabka grammarka u shaqeeyo words like tree ereyada tree iyo plant oo ah beeristii flower oo bixiya etc wixii lamidi are purely gabi ahaan lexical items waa ereyo luqadeed marka lagu leeyahay lexical items waxa weyn macnaha ereyada aan grammarka ahayn laakiin luqad ahaan okay and in no way sinaba part of a grammatical system ma soo galayaan qaybaha grammatical systemka from the learner's point of view inagoo ka duulayna nadariyada qofka ardayga qabo ama bartuhu uu qabo skill xirfada in handling structural words aad u maamulayso structural words ereyada dhismaha ama tarkiibta la isu saarayo is the key ayaa noqonaya furaha to mastering inaad ka qalin jabiso oo guul ka gaadho ee language luqada to mastering waa to obtaining oo kale for maxaa yeelay the meaning macnaha that is conveyed macnaha lagu gaadhsiiyo qofka in sentence patterns naamuunadaha ama qaab dhismeedyada sentenceska depends largely wuxuu in badan ku tiirsan yahay on the function hawsha of the structural words ereyada structuralka ah that hold them together oo isku haya it is possible waxa suurtagala doo inkastoo
this has yet to be proved scientifically. Tan ay tahay in cilmi ahaan loo qeexo marka hore, inkastoo this has yet to be ay tahay mar dambe in proved loo qeexo ama loo cadeeyo scientifically si cilmiyeysan. It is possible waxa suurtagala that every student in arday kasta of a foreign language oo luqada ajnabi baranaya has what might be called uu yaqaano ama leeyahay waxa loogu yeeri karo a language ceiling. Maana siliga luqada maxaa looga jeedaa waa a point noqdada. A point waa noqdada beyond which he cannot improve very much, beyond which taanu markaas he cannot improve maana ku hagaajin karin oo maana yani qaflad baa ka haysta waa qaflad oo kale qaflad. Beyond which he cannot improve taas oo aanu hagaajin karin ama horumarin karin very much aad iyo aad. If we accept hadaynu aqbalno this supposition fikradda noocana ama yani ikhtiraaxa noocana ama ra'isoo jeedinta noocana, our aim ujeedadeenu must be waxay noqonaysaa to enable every student in arday kasta karsiino ama awood u siino to learn inuu barto as much inta u badane as he is capable oo awood u yeelan karo of learning inuu u barto in the most efficient way, dariiqa ugu habboon ee ugu kaafiga badan ama kifaayada ah. The old-fashioned tradition translation the old-fashioned translation translationkii old-fashionka ah ama turjumaadii yani ardayga afkiisa loogu turjumi jiray ee old-fashionka ahayd and grammar rule methods iyo dariiqooyinka xeerka grammarku are extremely wasteful. Inta badan waxay ardayga ka lumiyaan waqtiga and inefficient waana qaran kaafi ahayn oo aan qofka deeqayn. For maxaa yeelay the student ardaygu is actually xaqiiqatan encouraged waxa lagu dhiirigeliyaa to make mistakes inuu qaladaad sameeyo. Okay he is asked waxa laga dalbaa to perform inuu ku sameeyo skills xirfado before he is adequately prepared isagoon diyaargaroobin isagoon si ku filan u diyaargaroobin. Teachers macallimiinta who use isticmaala such methods maana dariiqooyinka noocaas translationka unwittingly maana si aan maskax ku jirin create waxay abuuraan oo ay ku abuuraan ardayga maxay ku abuuraan create waxay ku abuuraan problems maana mashaakil they seek to avoid ay isku dayeen iyagoo ay raadinayeen inay joojiyaan. At some point meelaha qaarkood in the chorus oo chorus ka mid ah their students ardaydodu ineffectively si aanay ka baaqan karin become waxay noqdaan incapable of going on inay sii socdaan. qaar aan awood u lahayn of going on inay socdaan. They have to go back inay dib u noqdaan bay ku qasbaysa markaas. They have become waxay noqdeen remedial students arday yani remedy u baahan ama kaabis u baahan. Remedial students arday kaabis u baahan dawada la yiraahdo remedial students arday u baahan macna kaabisun. And the teacher macallinkana is faced with waxa soo wajaha the problem mushkilada of remedying ay tahay inuu daweeyo what has been incorrectly learned wixii sida qaldan loogu dhigay ardayda ay u barteen. No approach could be more ineffective. Ma jiro macna janib ama dhinac. No approach ma jira dhinac could be noqon kara more ineffective mid ka bila saamaysan wasteful ka waqti lumin badan and inefficient oo bila saamayna ama bila yani aan dhinac walba buuxin ka daboolay ardayga. Inefficient waxaan dhinac walba ka daboolay ayaa la oranaya. The student ardaygu should be trained waa in lagu tababaraa to learn inuu barto by making inuu sameeyo as few mistakes maana qaladaadka ugu yar as possible inta suurtagalka ah. He should be required waa in looga baahdaa to do anything inuu sameeyo shay kasta which is beyond his capacity oo ka fog ama ka durugsan capacity ama baaxadda ama yani awoodda uu leeyahay. A well designed chorus-ka sida fiican loo qaabeeyay is one waa midka which takes into account meesha ku daraya what might be called waxa loo bixin karo ama loogu yeeri karo the student's state of readiness. The student's state xaaladda ardayga of readiness ee diyaarnimada. The point waa noqdada where he can proceed uu hore uga socon karo from easy isagoo ka bilaabay mid fudud to difficult ilaa halka adag. If the student haddii ardaygu is ay tahay to make inuu sameeyo the most of his abilities kartidiisa inta ugu badan he must be trained waa in lagu tababaraa to adopt inuu isticmaalo correct learning habits caadooyinka saxda ee barashada. waayahay choruskan hadaba what has to be learned maxay tahay in lagu barto
the student ardaygu must be trained waa in loo tababaraa adequately si kaafi ah in all 4 basic language skills afarta xirfadood ee luqadda u asaaska macnaha maxaa kamid ah understanding fahanka tan ardaygu haddaan waxba fahansaneenba he can't learn speaking oo kalabaad waa inuu yaqaana reading oo akhriskiya and writing iyo qoraalka ugu dambeeya in many classroom courses badan oo lagu qaato classroomyada ama fasalada the emphasis xooga is wholly on inta badan waxa la saaraa the written language luqadda la qorayo the student ardayga student waxa lagu tababarayaa to use inuu isticmaalo his eyes and ears instead of his ears halkii uu dhagaa ka isticmaala marka listeningka ayaa ugu muhiimsan oo lahjadaad ku fahmaysa and his inability kartidaradiisa to achieve inuu gaadho ay tahay anything like correct pronunciation anything like wixii la mid ah correct pronunciation dhawaaqa saxda ah stress shadka halka la saarayo and intonation codka marna la dalacayo marna kor loo qaaday ilaa macnay samaynaysaa must be attributed waxa loo nisbaynaya wuxuu ku yiri markaas okay like correct pronunciation macna dhawaaqa saxda ah stress shadka halka la saarayo and intonation iyo laxanka lagu luuqaynayo must be attributed waxa loo nisbaynaya largely inta badan to the tyranny of the printed word mana dulmiga ama jawrka ay samayso ama yani xumaanta tyranny waxa la yiraahdaa horta marka hore luqa ahaan waxa la yiraahdaa yani qofka jaa'irka ama yani jawrka ayaa la yiraahdaa ama dulmiga ayaa la yiraahdaa tyranny marka the tyranny mana liidashada ay leedahay of the printed word eriga meesha ku qoran if the teacher had macalinku is to train ku tababarayo his students ardaydiisa to all 4 skills afarta xirfadood he must make waa inuu sameeyaa efficient use isticmaal wax ku oola oo kaafiya of the time waqtiga at his disposal uu casharka sii deynayo efficiency macnaha isku filnaanshaha aad luqadda ka gaadhaa presupposes waxay afeefu tahay the adoption isticmaalka of classroom procedures qaab sharciyeedka class which will yield oo dhali doona ama soo saari doona the best results nataa'ijka ugu fiican ku soo saari doona in the quickest possible time xilliga ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah the following order tartiibta soo socota of presentation ee qofku u jeedinaya macnaha hadalka ama fasalka oo kale must be taken waa in loo qaataa as axiomatic mid la rumaysto taken for granted la rumaysto axiomatic waxa weyn macnaha waa sida loo qaato waa dogmatic oo kale dogmatic iyo axiomatic waa isku mid nothing should be spoken eriga waa inaan lagu hadal before it has been heard korintaad maqal nothing should be read waxba inaan la akhrin before it has been spoken korintaan lagu hadlin nothing should be written waxba yaan la qorin before it has been read korintaan la akhrin markasta listeningka iyo readingka ayaa the best ah speaking and writing are the most important of these skills ayaa labada ugu muhiimsan speaking hadalka and writing iyo qoraalka ayaa noqonaya the most important of these skills labada ugu muhiimsan macnaha skillska since maadaama to some extent macnaha ilaa xaddin ma they presuppose ay yani afeef u yihiin ama hordhac u yihiin the other two labada kale learning to speak barashada hadalka oo kale the traditional conversation lesson casharkii traditionalka ama dhaqamiga ahaa ee la isticmaali jiray ee muxaadasada is of no value qiimo ma leh atoo lahba yaraatee if the student haddii ardaygu is not ready for it aanu diyaarba u ahayn okay it's impossible suurtagal uma aha for any student arday kasta at the post elementary level oo macnaha dhaafay elementaryga ama yani wixii elementary ka dambeeya post waa after oo kale to take part inuu qayb ka qaato in discussions wada hadalka on topics like mawaadiicda ay ka mid yihiin the cinema today cinemoga maanta for maxaa yeelay his ideas fikradihiisu quite outstrip his capacity waxay ka baxsan quite gabi ahaanba outstrip waxay ka baxsan his capacity awoodda uu leeyahay for expressing them cabiraadooda the student ardaygu must first be trained ugu horreyn waa in la baraa to use inuu isticmaalo patterns naamuunadaha ama qaab dhismeedka weedha in carefully graded oral drills iyadoo la siinayo laylisyo oral ama afka oo darajadoodu ay kala sareyso graded tadriiji only in this way kaliya habkan ayaa will be finally noqon kara ugu dambeynta learn to speak inaad barato hadalkii
before considering haddaba kahor intaynan macnaha tixgelin how this can be done hawshan sida loo qaban karo it should be noted waa inaad maanka ku haysa ama aad firo yeelataa the pattern in naamuunada luqadu is a language fall ay tahay macnaha luqadiioo fall into u dhacday two distinct categories laba caynadood oo iska cadaana progressive and static progressive waa tii tadawurka samaynaysay and static iyo tii macnaha meelun xaalku taagan yahay static for instance masalan learning how to answer barashadaas sida loo jawaabo and to ask questions iyo sida su-aalaha dadka loo weydiiyaa involves waxay ku leedahay the use isticmaalka of progressive patterns macnaha qaybaha ama naamunadaha tadawurka ah they are progressive waa qaar tadawur samaynaya because maxaa wacay the student is skill ardayga macnaha xirfadiisa in handle macnaha uu ku maamulayo these complex forms hababkanka kan must be developed waa in tadawur lagu sameeyaa of a long period muddo dheer beginning with iyadoo lagu bilaabayo a simple response like macnaha jawaabo yaroo basiida like sida yes it is oo kale and culminating oo macnaha lagu dhammaystirayo ama ficta lagu gaarsiinayo in complex responses jawaabaha kan like sida yes I should ama yes I ama no I shouldn't okay shouldn't I oo kale a static pattern markaynu ka hadlayno on the other hand dhanka kale like waxay la mid tahay like the comparison of adjectives sida masalan miisaanka ama muqaaranada lagu sameeyo macnaha sifooyinka oo kale can be taught waxa lagu baran karaa in a limited number of lessons tiro go-aan macnaha 10 in a limited number tiro maxduuda of lessons oo 10 not of oo aan ka badnayn a long period progressive patterns haddaba kuwa masalan horumarka ama tadawurka ah should be practiced waa in macnaha lagu tijaabiyaa lagu practice gareeyaa through comprehension exercises laylisyada comprehensionka ama fahanka which require u baahan the student ardaygu to answer inuu ka jawaabo and to ask questions ama su-aal qof weydiiyo which become noqon kara increasingly complex qaar aad u adag as the course proceeds markuu course-ku hore u sii socdaba the student ardaygu should be trained waa in lagu tababaraa to give tag answers inuu jawaaba gaagaaban bixiyo tag answers waxa la jawaaba gaagaaban meegu sameeyay negative diidmada and affirmative statements iyo weeraha affirmative ijaabiga ah to answer si ugu jawaabo double questions mana laba su'aalood oo joined la isugu xiray by or answer general questions which begin with question words wuxuu answer general questions which begin with question wuxuu answer ka jawaab general questions su'aalaha caamka which begin ee ku bilaabmaya question words erey su'aaleedka question words erey su'aaleedka like sida when goorma where halkee how sida etc wixlamida and at each stage marxalad kastana the student ardayga should be trained waa in lagu tababaraa to ask questions himself inuu isagu su'aalo isweydiiyo it is obvious waxa iska cadaana that this skills in xirfadahaasi cannot be dealt with aan loola macaamili karin ama aan lagu dhaqmi karin ama aan lala dhiilgarayn karin oon laga hadli karin in one or two lessons hal ama laba cashar the student ardaygu requires wuxuu baahan practice tijaabo inuu ku celceliyo waxa of this kind noocan in every lesson cashar kastaba at the same time isla markaa static patterns ama muunadaha statica ama xaaliga ah should be practiced waa in lagu tijaabiyaa by means of drills laylisyada kooban which make use of oo looga faa'iideynayo language laboratory techniques farsamooyinka macnaha lagu sameeyo language laboratory ama shaybaadhka luqadda in each of these drills mid kastoo ka mid ah drillska ama laylisyada the teacher macalinku seeks wuxuu raadinaya to elicit inuu faahfaahiyo a particular kind nooc gaara of response oo jawaaba he provides wuxuu siinaya the student ardayga with a stimulus wax dareenkiisa kiciya to elicit suu macnaha faahfaahin uga bixiyo the new pattern naamunada cusub ama qaab dhismeedka cusub in a series taxane of oral drills laylis afka ah until lama the student ardaygu is able karo to respond inuu uga jawaabo accurately si saxa and automatically oo dhab ah students ardayda may also be trained waxa lagu tababari karaa to speak inay u hadlaan
through iyadoo loo marayo oral composition exercises laylisyada curuska ah ama curinta oralka ah where halkaasoo dee require looga baahan yahay to reproduce inay dib u abuuraan orally si afa inay u abuuraan oo shafawi ah a passage qadacadii of English luqadda Ingiriisiga ah oo they are familiar with ay ku canbixeen ama mesela oo kale ay aad u yaqaanin familiar u ah at the outset sideenta luqadda ama sentenceada at the outset macnaha sideenta ama fasaxaada uu fasaxayo hadalka the student ardaygu should practice waa inuu tijaabiyaa reproducing macnaha inuu dib u soo saaro narrative and descriptive pieces narrative sheekooyinka la soo wariyay and descriptive pieces iyo kuwa macnaha aad qori karto ee wax tafsiiraya ama yani sharaxaad bixinaya okay waayahay at a much later stage marxalad aad u dambaysa you will practice macnaha wuxuu tijaabin doonaa ama uu macnaha ficiliyan u samayn doonaa reproducing macnaha inuu dib u soo saaro oo uu macnaha ka ilmo dhalo the substance walaxda ama shayga of an argument dooda ama jadalka ah when he can do this well markuu doodan samayn karo he will be wuxuu noqon doonaa in a position meel to converse uu ku sheekaysan karo on set topics mawaadiic kala duwan which deal with oo la xidhiidha abstract ideas afkaar yani aan la taaban karin oo macnaha sida loo taaban karin by this time markan he will be able wuxuu kari doonaa to express himself inuu cabiro isaga naftiisu with confidence kalsooni leh isagoo with confidence kalsooni leh and will make relatively few mistakes khaladaadkiisuna aad u yaraanayaan the technique is taqniyaadka ama farsamooyinka use lagu isticmaalo in speech training macnaha tababarka hadalka at the pre-intermediate level ee heerka macnaha ka horeeya yani dugsiga dhexe may be summarized waxa lagu soo koobi karaa as follows sida soo socota drilling in progressive patterns drilling in static patterns practice in oral composition macnaha saddexdaas ka koobnaan karta drilling iyadoo laylis lagu siiyo in a progressive patterns qaybaha yani tadawuray ama ingiriisiga macnaha xoogaa socday oo kale drilling in static patterns ama static patterns-ka kuwa xaaliga ah ee meesha uu taagay markaas meesha hoose practice in oral composition iyo macnaha inuu curus ka jeediyo ama curus dhan ka akhriyo afka learning to write bal qoraalkana aynu eegno markaas learning to write qoraalkana aynu eegno wuxuu ku yiri markaas learning to write and the same sort of careful grading wuxuu yiri learning to write waa barashadii qoraalka wuxuu ku yiri the same sort of careful grading macnaha darajayn laga fiirsaday oo noocyo isku mid ah ayaa iskuwari loo baahan yahay when we attempt markaynu isku dayno to teach students inaynu ardayda barno to write inay wax qoraan we must again mar labaad begin waa inaynu ku bilownaa with the simplest form of statement weeraha ugu fudud students ardaydu are all too often plunged into waxa la muquuriyaa oo la dhexgeliyaa un composition work yani hawl curisa long before they are ready iyagoo u diyaar garoobin for it iyada at some point in a chorus meela kamida choruska the teacher macalinku may decide wuxuu go'aan ku gaari karaa that it's time his students inay tahay xilligii ardaydiisu attempted ay isku dayi lahaayeen to write a composition in curus qoran this is a random hit or miss method tan waxa la yiraahdaa random waxa weeyaan bila target way waa bila yoolba this is a random ama waxa la yiraahdaa waa hit or miss method yani dariiqa qabso ama ha qabsan ama garaac targetka ku dhufo ama seeg which creates or abuurta enormous remedial problems macnaha mashaakil asaasiya oo aad u waaweyn enormous oo weyn remedial waa wixii wax daweynaya oo kale and produces oo soo saarta disastrous results nataa'ij aan laga faa'iidino kaarisi macnaha kawaarisa disastrous oo kaarisi ah if a student's soul experience of written English if the student's soul experience khibradda kaliya ardayga of written English ee luqadda qoran has been ay ahayd to fill in buuxiyo in blank spaces meelo bannaan in tailor-made sentences oo ah jumladaha aadka u dhaadheer ee dawaarlu sameeyo kale it is wildly unreasonable gabi ahaan waa qeyr macquul to spring inaad ku boodo a composition subject mawduuca curuska on him guudkiisa and then the next expect him ka rajayso to produce inuu soo dhaliyo ama abuuro correct and readable prose macnaha prose yar ama tix yar oo masalan oo kale la akhriyi karo ama la fahmi karo
as with premature discussions مثلا markaynu ka hadlayno premature discussions falanqooyinka aan qaangaadhka ahayn in on set topics macnaha topicyada sida loo dejiyey all we are doing waxaynu sameynaa waxay noqonaysaa is to encourage inaynu ku dhiirigelino to make mistakes inuu qaladaad sameeyo and it's no good macnaha faa'iidana kuma jirto hob inaad ka fisho that after a few years of this sanadeer kadib involving massive correction on the part of the teacher or involving waliba ku lug leh massive correction macnaha sixitaan aad u badan on the part of the teacher oo qaybta macalinka ah the student will somehow soon improve on his own tadawur u samayn karaa uu hagaajin karaa luqadiisa very few students arday aad u tirayer are sufficiently conscientious ayaa ku dadaala oo dadaal badan or highly motivated ama yani dardargelintoodu sarreysa to examine marka tijaabo ka qaadayaan in detail si faahfaahsan their own corrected written work hawsha qoran ama ay qoreen ee saxda ah okay way even if they did haddii xitaa sidaas sameeyaan there is waxa jira absolutely no guarantee damaanad ma jirto no guarantee ma jirto damaanad that they will not go on making the same mistakes inay qaladaad kusoo noqonayaan writing skill mana xirfada qoraalku can best be developed waxa lagu tadawulin karaa through carefully controlled and graded comprehension pre-say exercises waxa lagu tadawulin karaa through iyadoo loo marayo carefully controlled mid si degan loo maamulay and graded loo darajeeyay comprehension macnaha fahmitaanka ama pre-say exercise leelisyada pre-sayga ama soo koobistoo kale pre-say writing is not maaha a style academic exercise macnaha yani masalan oo kale leelis jaamiciya oo madhalaysa useful only oo faa'iido u leh for examination purposes ujeedooyinka imtixaanka loo qaadayo it can be used waxa loo isticmaali karaa effectively si wax ku oola to develop si kor loogu qaado a student's writing ability kartida qoraalka ardayga at the pre-intermediate stage marxaladda ka horeysa macnaha mutawassidka waxa leeyahay icdaadiga the student ardaygu masleen waa inuu bartaa how to write sida loo qoro simple compound complex sentences weeraha simbalka ama lamaanaha ama kakan and to connect inuu xiriiriyo ideas fikrada from notes isagoo soo qaadanaya noteski uu ka qortay casharka controlled pre-say writing mana qoraalka pre-sayga ama summary-ga maamulan will enable waxa uu awood u siin doonaa the student ardayga to master inuu qalin jabiyo ama uu si fiican u barto each of these difficulties dhibaatooyinka mid kastoo ka mid ah and bring him oo ay u keento to point inuu tilmaamo where he will be capable halka uu ku awoodi doono of writing qoraalka a composition curus with a minimum of error isagoo qaladka ugu yargelaya the main stages haddaba yani maraaxilka ugu muhiimsan in training xagga macnaha trainingka the student in the written language marka ardayga laga hadlayo luqadda qoraalka at the pre-intermediate level ee ka horeysa macnaha icdaadiga may be summarized waxa lagu soo koobi karaa as follows sida soo socota maxaa lagu soo koobi karaa markaas waxa lagu soo koobaya practicing writing simple sentences through controlled comprehension ama pre-say exercises inaad yani practice ku samayso in writing qoraalka aad qorayso simple sentence word fudud through adoo maraya controlled comprehension macnaha fahmitaan maamulan ama pre-say exercise leelisyo yani pre-say soo koobisa practice waa adoo practice gareeya in writing compound sentences wadaha lamaanaha ah inaad qorto through adoo maraya controlled comprehension ama pre-say sentences practice in writing complex sentences wadaha kana umara through controlled comprehension macnaha fahmitaan maamulan ama pre-say exercise leelisyada noocaas practice macnaha tijaabo aad ku samayso in connecting ideas inaad fikradaha xidhiidhiso from adoo ka duulay notes macnaha niqaadkii ama nuqdadihii that have been provided lagu siiyey the teaching of grammar dhigidda grammarka the teaching waa dhigidda of grammarka wuxuu ku markaas in traditional textbooks macnaha kutubtii masalan dhaqamiga ahayd ee la soo caadaystay all information about sentence patterns dhammaan warbixinta ku saabsan baatinada
macnaha sentence-ka ama qaab dhismeedka is presented waxa loo jeediyaa in the form habka ama qaabka of rules qawaaniin ama xeer which the student applies uu ardaygu ku isticmaalo in a series taxane of disconnected sentences weedho aan xidhiidh lahayn by filling isagoo buuxinaya in blank space meelo bannaan or ama by giving bixinaya the correct form habka ugu saxsan of words ereyada ah in practice ee ku jira qowska. It has become absolutely abundantly clear it has become waxay noqotay abundantly si kaafiya ama si aad u badan bay clear u noqotay waadax that this approach in yani janibkan to language learning ee luqad barashadu is highly ineffective aanu ahayn mid saameyn leh. Okay, it encourages waxay ku dhiirigelinaysaa the teacher macallinku to talk about inuu ka hadlo the language luqadda. Okay, the greatest weakness ducfiga ugu weyn wuxuu ku yidhi instead of training his students to use it halku ardaydiisa kaga tababari lahaa inay isticmaalaan the emphasis haddaba tawkiidka ama adkeynta is on waxa la saaraya written exercises macnaha layliska qoran. The greatest weakness ducfiga ugu badan in this approach ee janibkan istaad waxa weeye the student ardaygu cannot transfer macnaha uma bedeli karo what he has learned wuxuu bartay from isagoo ka duulaya abstract exercises laylisyadii macnaha aan la taabanayn of this kind ee noocana to u gudbaya other language skills xirfadaha kale luqadeed like sida understanding fahanka speaking hadalka and creative writing iyo qoraalka la abuuray oo kale ama isagu abuuray. A new pattern haddaba naamunad cusub should not be presented waa inaan loo soo jeedin as the exemplification sidii tusaale bixinta of some abstract grammar rule macnaha la bixinayo grammar rule qarsoon but laakiin as a way of saying something waxaa la barayaa as a way dariiqa of saying something shayga la odhanayo. No further explanation ma jira sharaxaad dheeraada or ama education elucidation macnaha tafaasiil is necessary oo daruuri ah. The student ardayga is trained waxaa lagu tababaraa to use inuu isticmaalo correct forms macnaha qaababka saxda automatically si dhaba rather than halkii uu macnaha ka adeegsan by applying grammar logic halkii uu macnaha caqlaaniyadda ama grammar logic ama macquuliyada naxwaha ka isticmaali lahaa. Where explanation is necessary halka macnaha tafsiirku daruuri yahay it can waxay noqon kartaa for instance masalan the student it can be done waxa lagu samayn karaa by relating iyadoo la xidhiidhay new pattern cusub lagu xidhiidhiyo to one that has already been learned mid mar hore lasoo bartay. If haddii for instance masalan the student ardaygu has learned to bartay the use of must isticmaalka must he can be taught waxaa la bari karaa the use isticmaalka of have to oo kale by being made iyadoo laga dhigayo to see inuu fahmo a meaningful relationship cilaaqaad yani macna samaynayo bidin u dhexeeya tu labada. Students ardayda working ka shaqeynaya at the pre-intermediate levelka pre-intermediate may be given waxa lagu samayn karaa ama lagu siin karaa exercise laylisyo in recall xusuus ahaan daastaa macnaheedu waa relating in la xidhiidhiyo language difficulties sucubaadka lagala kulmay luqadda okay to a particular context iyadoo la raacayo macnaha context gaar ah ama dariiqo gaar ah oo dayno ay yaqaaniin weel si fiican. In this way habkan they will be trained waxaa lagu tababari karaa to use inay isticmaalaan corrective forms macnaha foomamka saxda instinctively macnaha iyagoo jecel oo caadifadaysan. The teacher macallinku is markaas incidentally si lama filaan saved waxa uu ka badbaaday the terrible mushkiladii of correcting exercise in layliska saxo since maadaama for the most part qaybta ugu badan the passages do this for him the passage qidcada meesha lagu qorayaa do this ay tan u sameynayaan for him isaga. Traditional filling in the blank exercises wuxuu yidhi macnaha caadadii dhaqamiga ahayd ee meelaha bannaan buuxi la odhan jiray still have a place meel bay ku leedahay in modern course casriga ah but laakiin with one important difference farqi baa u dhaxaynaya macnaha aada u muhiima. They should not be used to loo isticmaalin as a means hub of teaching new patterns ardayga lagu baray patterns cusub but laakiin as a means dariiqo of consolidating lagu xaqiijinayo what has been learned wixii la bartay. They are an end not a means to an end. They are an end waa dhammaadkii markaas not maaha a means dariiqo ama wasiilo to an end ku socota macnaha dhammaad. In this respect janibkan they are extremely useful faa'iido badan bay u yeelanayaan in
in tests tijaabooyinka and can be employed macnaha waxaa lagu shaqo gelin karaa for diagnostic purposes ujeedooyin la qeexay oo la cadeeyay or ama to enable inay awood u siiyaan the teacher macalinku to assess inuu qiimeeyo terminal behavior dhaqanka bardhamaadka ama terminalka ah waayahay the multi-purpose text waa qoraalka macnaha ujeeda badanta ah in order to do si aynu samayno all the exercises dhammaan leesyada outlined above xagga hore lagu faahfaahiyey ama xagga sare lagu sheegay the student ardaygu must work waa inuu howlgala from isagoo ka bilaabaya especially written texts macnaha qoraalada sida gaarka loogu sameeyey each text qoraal kastana must be used waa in loo isticmaalaa to train inuu ku tababaro the student ardayga in the following skills xirfadaha soo socda oral comprehension macnaha layliska afka ah oral practice afka inuu wax ka sameeyo oo isagoo labadaba isticmaalaya progressive and static patterns muunadii bidaa'iga ahayd iyo tii macnaha tadawurka reading aloud kor ereyga u odhanaya oral composition curus afka ka jeedinaya dictation yeedhis control comprehension isagoo qaadanaya macnaha comprehension macnaha habaysan oo maamulan preset summary and composition practice iyo macnaha tijaabinta curuska oo waliba uu tijaabinayo simple compound and complex sentence weeraha noocaas written grammar exercises in recall waxa kaloo iyaduna uu helisaa written grammar exercises macnaha laylisyo grammar oo qoran in recall oo xusuusto in recall oo xusuusahaan uu bixiyo waxaas xusuusahaan uu bixiyo waayahay wuxuu ku yiri markaas we might call these special written passages we might call waxaanu u bixin karnaa these special written passages qadcadaha sida gaarka loo sameeyay multi-purpose texts ujeedo badana since maadaama they are used loo isticmaalo as the basis asaaska for a variety of exercises badan oo mutanawic ah ama kala duwan which kuwaasoo ay ujeedadoodu tahay at developing inta dawr lagu sameeyo a number of skills xirfadaha simultaneously isku mar ama wadajir simultaneously oo waxa la oran jiray isleegyada wada jiro kale waxa la oran jiray simultaneous equations okay if these texts hadii qoraaladan are to be suitable ay noqonayaan qaar ku habboon for so many purposes ujeedooyin badan they must be specially devised waa in loo ikhtiraacaa si gaar ah devised waa invented oo kale the new patterns qaab dhismeedyada ama habka sentenceska that are to be taught ee la baranaya must be contextualized waa in context la raaciya oo contextka loo eega sidii hadalka ugu jirta waxaas contextualized that macnaheedu waxa weeye they must be built waa in loo dhisaa ama lagu habeeyaa into each text qoraal kasta these reiterated patterns naamunadaha soo noqnoqday should be unobtrusive waa inaanay noqon unobtrusive waa inaanay noqon marka macnaha waxaa looga jeedaa their use macnaha isticmaalkoodu should strike waa inuu soo jeediyaa uu garaaca uu taabtaa the listener dhagaystaha uu ka dhigaa asbin inuu noqon karo inevitable mid aan laga baaqsan karin rather than halkay ka ahayd artificially superimposed mid dushun lagaga keeno si artificial dusha looga keenay there is also sidoo kale waxaa jira another very important requirement baahi kale oo aada muhiim ah okay the text must be interesting waa inuu noqdo mid xiiso leh oo amusing ama mid qosol badan so that they will entertain wuxuu maaweelin doonaa the student ardayga hold his attention dareenkii soo jeedinaya and minimize wuxuu yareynayaa the inevitable drudgery involved in drill work the inevitable drudgery dhoobaqaadka aan laga baaqan karin drudgery waxa weeyaan macnaha dhoobaqaad oo kale macnaha lafagurka involved ku lug leh in drill work if the texts are accompanied by illustrations if texts haddii macnaha qoraalada are accompanied ay weheliyaan by illustration sawir they will be even xitaa waxay noqonayaan more appealing qaar kasii baahi badan kuwaas oo kasii begging badan ama kasii xiisa badan baan leeyahay more appealing at the beginning level masalan levelka ama darajada bilowga illustrations tusmooyinku are more functional way ka shaqo badan yihiin than decorative they are qurxinu at this level macnaha habkan the reverse is true noqoshada ama dib celinta ayaa is true daba the pre-intermediate stage marxaladda ka horeysa icdaadiga markiis waxay astaan u tahay
a transition kala guuraad ka guuraysa from audio visual techniques farsamooyinkii maqal iyo muuqaalka ahaa to audio lingual ones adoo u gudbaya kuwii luqad dhageysiga ahaa. bal hadda u fiirsa speed and intensity. Speed waa xawaaraha aad ku socoto, and intensity iyo quwada ama tarkiiska aad saaraysa casharada. Traditional courses koorsooyinkii dhaqamiga ahaa ama la iska yaqaanay la wada yaqaanay are often divided into waxa loo qaybiyaa lessons casharo. But these lessons laakiin casharadani do not take into account meesha ku dari maayaan what can be done waxa lagu qaban karo in an average teaching period. macnaha xilli barideed celcelisahaan oo 45 minutes oo 45 minutes or an hour ama saacada. They simply consist of waxay ka koobnaan karaan an amount xaddi of information warbixina and may run on waxay socon karaan for a great many pages. macnaha pages aad fara badan. In the classroom markaynu fasalka ku jirno, one of mid kamid these lessons casharadaasi might drag on waxa laga yaabaa inuu jiitamo for weeks muddawidaga because maxaa waay so much has to be done wax badan waa in la qabtaa. A lesson casharka must be precisely waa inuu noqdaa mid si kooban what the word implies. A lesson casharka must be precisely what the word implies. waxay ereygu sheegayo waa in la taabtaa un si kooban. marka waxay noqonaysaa an amount xaddi of material share that can reasonably or si caqli gala be covered lagu dhamayn karo in a teaching period xiisad dhigiseed. Possibly sida suurtagalna with additional material wax dheeraada lagu darayo which can be done oo loo samayn kara as homework camal manzil oo kale ama shaqo guri. In other words, haddaan erayo kale ku sheego, a lesson casharku must be considered waa in loo tixgeliyaa as a unit xubin of instruction macluumaad ama amar ama yacni dariiqo aan noomar wax kale inaan loo arag. Now it's extremely difficult. waqtigan aad bay u adag tahay for the chorus in choruska isaga for the chorus designer ninka design garaynaya choruska to decide inuu go-aan ka gaadho what can be done waxa lagu suubin karo ama lagu samayn karo in an average period xiisad kaliya. Obviously sida muran madoonta ah ee class fasalka of bright students ardayda xariifiintii will cover waxa ay dhammaystiri karaan more ground than a class of less able ones. more ground wax macnaha juhdi badan more ground juhdi badan oo danka badan a class macnaha fasal dan of less able ones oo kuwa aan kartida lahayn. This problem mushkilada noocana can be overcome waa laga adkaan karaa if the lesson contains haddii casharka ay ku jiraan material ashyaa which can be oo mid laga tegi karo at the discretion of the teacher macnaha feejignaanta ama taxadirka macallimiinta. Providing that iyadoo loo nisbaynayo providing that marka loo nisbayo these omissions ka tegitaankaasi do not hamper inaanu caqabad ku noqonayn the students progress tadawurka ardayga. Levels waa darajooyinka buugga new conceptigu leeyahay for purely practical purposes ujeedooyin la taaban karo oo saafi ah. markaynu ka duulno students ardayda attending ka soo xaadiraya language schools iskuulada luqadaha have to be classified waa in lagu ablaablay ama loo qaybiyaa in terms iyadoo loo eegayo of knowledge aqoonta and achievement iyo guusha uu gaadho qofkaasi. It might be worth noting waxa yacni xusid mudnaan karta that a full scale course in course isku dhammaystirani will resolve uu go'aamin karo itself nafteeda inuu isu go'aamin karo into 3 parts 3 qaybood each of which oo xubin kasta ama qayb kasta ka midi will consist of ay ka koobnaan karto 2 stages 2 marxaladood. Stage wuxuu noqonayaa pre-elementary level macnaha elementary levelka waxa ka horeeya waa ABC iyo xilal talabaadna waxay noqonaysaa elementary level darajada ibtidaa'iga. Stage 2 wuxuu noqonayaa pre-intermediate levelka intermediate wixii ka horeeya ta ku xigtana waa intermediate level. Stage saddexaadna wuxuu noqonayaa pre-advanced levelka ka horeeya advancedka ka ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa advanced level mutaqadimiinta ama levelka yani dadka dee fogaaday ee master granny ingiriisigii. waayahay about this course waa course-kan macnaha waxaa looga jeedo about this course-kan waxaa looga jeedo waayahay bal markaas xalqadeena koowaad ee buuggeena practice and progresska oo aynaan weli gudagelin casharadeenii balcaawa halkaa inoo joogto. haddii la yidhaaho waxaynu ku dari doonaa xalqadeena soo socota waa macallin nuur
oo idin leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.